حديث اليوم وحديث كمان تا إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل معروف صدقة رواه البخاري. waxaa laga wariyey jaabir ibni cabdilaahi allaha ka raali noqdee inuu yidhi wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi waaalihi wasalam wax kasta oo wanaag aan waajib ahayn ah oo la qabtaa waa sadaqo la iska abaalmarin doono. bukhaari ayaa wariyey. xadiidka maxaa laga faa'iidaysanayaa? kow, sadaqadu maalka keliya ma gashee wax kasta oo macruuf ah oo ka mid ah camalka wanaagsan iyo khayrku waxay leeyihiin ajar, sida marka uu qofku maalkiisa wax kala baxaba uu ajar u heli lahaa. labo, wax kasta oo wanaag ah oo aad gashaa waa sadaqo, qani ama faqiir iyo ciddaad doontaba u gal-e. saddex, macruufka sadaqada noqda waa kan aan waajibka ahayn. afar, cabirka macruufka, khayrka iyo wanaaggu waa kan alle ka raali yahay iyo qaabka uu uga raali yahay ee nusuustu caddaysay. shan, waxaa laga fahmayaa in aan wax wanaag ah la yaraysan. lix, waxaa kaloo laga fahmayaa in aan wax khayr ah laga gaabin ama lala bakhaylin ee lagu degdego samayntiisa. toddoba, sadaqadu in ay laba nooc noqoto, mid maal lagu baxsho iyo mid aan maal lagu bixin. siddeed, sadaqada aan maalka ahayni labo ayay u sii kala baxdaa, mid nafcigeedu uusan ku koobnayn qofka sameeyey sida wanaag u samaynta khalqiga rabbi, wanaag faridda, xumaan reebidda, ugu yeeridooda in ay alle addeecaan, caasiyiddiisa in ay iska daayaan, baristooda cilmi waxtar u leh adduunkooda iyo aakhiradooda, baridooda qur'aanka, ka wareejinta ama zuulinta waxa wax u dhimaya jidka dadka iyo danta guud, u dadaalidda waxa dadka anfacaya iyo ka hortagga waxa dadka iyo khalqigaba dhibaya. sagaal, noocaani waa nooca qofka sameeyey nafcigeedu uusan ku koobnayne waa ka fiican yahay sadaqada maalka laga bixiyo. toban, nooca kale waa mid nafcigeedu ku kooban yahay qofka sameeyey, sida noocyada xusidda ee uu qofku alle xusuusto oo ay ka mid yihiin takbiirta waa allahu akbar, tasbiixda waa subxaana allah, taxmiidda waa alxamdu lilah, tahliisha waa laa ilaaha ila allah, istikfaarta waa astakfirullah, masaajidda aadidooda iyo wixii la mida. koob iyo toban, noocan nafcigiisu qofka sameeyey ku kooban yahay intiisa badani waa ka fadli badan yahay sadaqada maalka laga baxsho. laba iyo toban, noocyada sadaqada wanaagga waxaa ka mid ah in qofku uu dhibkiisa af iyo adin intaba ka daayo khalqiga alle. saddex iyo toban, sadaqada ajarkeeda waxaa shardi u ah oo ay ku fiican tahay in niyadi la socoto, waa alla darti qofku inuu u samaynayo e. afar iyo toban, hadduu qofku istusnimo u sameeyo wuxuu ku mudanayaa ciqaab alle, iska daa in ajar laga siiyo e. shan iyo toban, waa laga yaabaa in hadduu isagoo niyad fiican ama mid xumi la socon iska caadaystay inuu wanaag sameeyo laga ajar siiyo sida nusuusta qaarkeed laga fahmayo. lix iyo toban, wanaag faliddu waxay noqon kartaa wax ka dhaca qofka qalbigiisa oo uu ama hamiyo ama niyeysto, allana wanaaggaas wuu ka abaalmariyaa qofka. toddoba iyo toban, qofkii isagu shar niyeysta oo alla dartii isaga daaya iyana wanaag ayaa looga qorayaa.
xadiidkani waa xadiid aad iyo aad muhiim ugu ah nolosheenna. wuxuu u yahay fartiin buuxda qof kasta oo wanaag naftiisa iyo dadka kaleba la raba. inta aynu xadiidka kale ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa ammaane allah. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين